magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shirka wadatashiga labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland. Shirkan ayaa waxa uu magaalada caasimadda ee Garowe waxa uu ka soconayay laba maalin ah. Shirka ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay ugu horeeyaan madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Jubaland, madaxweyne ku-xigeenka Puntland. waxaa ka soo qayb galay sidoo kale wasiirada golaha wasiirada labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland. sidoo kale waxaa ka soo qayb galay madaxweynihii hore Puntland Cabdiweli Cali Gaas iyo senator Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole oo ka mid ah xildhibaanada golaha aqalka sare marna soo noqday madaxweynaha Puntland. Puntland iyo Jubaland ayaa maanta si wada jir ah uga soo saaray warmutiyad iskaashiga labada dowladood. dowladda Puntland iyo Jubaland waxa ay ummadda Soomaaliyeed ugu baaqeen in laga wada qayb qaato sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho lana ilaaliyo wadajirka amniga iyo xasiloonida dalka sida lagu xusay warmutiyadka maanta soo baxay. wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda Puntland dowladaha Jubaland iyo Puntland Cabdullaahi xubnaha ka ah Santimacade dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shir socday laba maalmood 25 ilaa 26 bishan August 2020 waxay ku yeesheen magaalada Garowe ee caasimadda Puntland madaxweynayaasha labada dowladood mudane Axmed Maxamed Islaan iyo mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shirkooda uga wada hadlay xaaladda siyaasadeed iyo amniga ee dalka Soomaaliya. madaxweynayaashu waxay kaloo ka wada hadleen iskaashiga ka dhaxeeya labada dowladood ee Puntland iyo Jubaland. muddadii ay socdeen wada hadallada waxaa qabsoomay shirar gooni ah oo diiradda lagu saaray arrimaha masiiriga ah ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka 2020-2021. waxaa dhinac socday shirar farsamo oo dhex marayay guddiyo labada dhinac ka kala socday kana koobnaa wasiiro, xildhibaano iyo la taliyayaal sare ayaa waxaa lagu falanqeeyay arrimaha farsamo ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021. madaxweynayaasha ayaa dhankooda waxay shirar wadatashi ah la yeesheen madaxweyne ku-xigeenka Puntland, guddoonka baarlamaanka Puntland, madaxweynayaashii hore ee Puntland, xubno ka socda labada aqal ee federaalka, siyaasiyiin rugcada ah iyo madax ka tirsan ururada bulshada rayidka ah. madaxweynayaasha ayaa sidoo kale intii ay socdeen shirka Garowe waxay xiriir dhanka telefoonka la yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyadoo laga wada hadlay sidii xal midaysan loogu heli lahaa arrimaha siyaasadeed ee dalka, taas oo ay ka dhalatay in shir wadatashi ah la isugu yimaado caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho si loo gaaro xal siyaasadeed oo la isku waafaqsan yahay ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021. dowladaha Jubaland iyo Puntland ayaa isku raacay aragti siyaasadeed iyo mabaadi' asaasi ah oo gundhig u noqon kara hirgelinta doorasho la fulin karo kuna dhacda waqtigeedii si looga fogaado xasilooni darro siyaasadeed iyo khalkhal amni. dowladaha Jubaland iyo Puntland waxay ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaan in laga wada qayb qaato sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho lana ilaaliyo wadajirka amniga iyo xasiloonida dalka. dowladaha Jubaland iyo Puntland waxay uga mahad celinayaan beesha caalamka dadaalka ay ugu jiraan in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho waqtigeedii ku dhacda loona dhan yahay. wabillahi tawfiiq. wanaagsan ee muddadii ay joogeen shaqooyinkii halka ka socday ay uga qayb qaateen. waxaan runtii muhiim ah marxaladahan oo kale markay jiraan in la tashiga iyo wada tashiga uu bato. Jubaland iyo Puntland shirkii u qabsoomay wixii ka soo baxay war-saxaafadeedkii ayaa lagu akhriyay. gundhigiisuna wuxuu ahaa sidii iskaashigii hore u socday loo adkeyn lahaa, sidoo kaleetana marxaladan hadda dalku ku jiro aragti midaysan aan uga yeelan lahayn arrimaha ku aadan geedi socodka dib u dhiska dalka Soomaaliya. runtii waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimadda ana in ay ku soo gabagaboobi doonaan si wanaagsan oo maslaxadda ummadda danteeda ku jirto. wixii halkaa ka soo baxana kulley waqtigeeda ayay ahaan doontaa haddii Ilaahay idin ka dhigo. waxaan runtii hadalkay ku soo gabagabeynayaa in kulankii halka dhacay oo kulan muhiim ahaa guddiyadii kala duwanaa ee ka qayb qaatana
ay runtii aad u lafagureen xaaladda dalku maraya iyo marxaladda hadda ku aadan intaasna waxaan rajaynayaa inay waxtar u noqon doonto dhismaha dowladnimada Soomaaliya intaasaan hadalkay uga baxayaa madaxweyne ku soo dhawow waxaan rabaa marka hore madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Deni iyo maamulka labada gole golaha wasiirada iyo golaha fulinta baarlamaanka ee Puntland iyo dhammaan shacabka reer Puntland inaan uga mahad celiyo soo dhaweyntii qiimaha iyo qadarinta lahayd ee nagu soo dhaweeyeen magaalada Garowe iyadoon u raacinayo inay Puntland had iyo jeer tahay hooyada systemkan maanta federaalka ee Soomaaliya ka jira ayna ka muuqato hooyanimadeedu sida marwalba ay dadaalka dheeraadka ah ugu bixinayaan sida Soomaaliya meeshii taagantay hore uga socon lahayd nidaamka federaalka u hirgeli lahaa dowladnimada Soomaaliya ay cago ugu istaagi lahayd intaa markaan ka soo gudbo waxaan filayaa warka murtidiisa waxaa lagu sheegay warmurtiyeedkii saaxiibkay madaxweyne Siciidna faahfaahin dheeraad uu ka bixiyey in yar waxaan rabaa inaan ku daro xaaladda maanta waddanka Soomaaliya uu ku jira waqti kala guura ma aha inay hadda waqtigan oo keliya caqabadani timaado mar kasta ay doorashadu soo dhawaato waxaa yimaada isqabqabsi waayo damaca ayaa isdiida ninka kursiga ku fadhiyay wuxuu rabaa inuu sii joogo oo waqtigii hore way uga sii fiicnaanaysaa ninka bannaanka ka joogana wuxuu doonayaa inuu kursiga tago wuxuuna qabaa tuhul ah ninka maanta fadhiyay inuu rabo inuuna ka tegin taasi markaa waad garan kartaan 2012 iyo 2016 labadaba xaaladda waqtiga ugu dambaysa meesha ay gaaraysay laakiin maxaa meesha taalla waxaa weeyaala in la helo shucuurul mas-uuliya ama dareen mas-uuliyadda in la dareemo oo qof waliba maanta kursigan wuu ka tegayaa laakiin uu garto waxa uu ka tegayaa waxa ay noqonayso waa mid faran markaa nin kastoo mas-uula maanta ama heer state ha noqoto ama heer federaal ha noqotee inuu garto maanta xaaladda waddanka uu ku jiraay waxaa ka iman karay iyo meeshay istaagi karayso taasaa waxay ahayd waxa aad aan saaxiibkiis Siciid iyo madaxdii reer Puntland iyo akhyaartii iyo waxgaradkii aan ugu nimid aan kala hadlaynay danta dalku maxay tahay maxaase annaga nagala gudboon wax badanna waxaan istusaynaa waxay ahayd in qof waliba meesha uu taagan yahay tanaasul uu sameeyo dadkan sidii la isugu wadi lahaa waddankan meeshii la geyn lahaa sida si nabad ah doorasho uga dhici lahayd waqtigeeda ku dhici lahayd khalkhal siyaasadeedna uuna u yimaadeen waayo marka taariikhda dib ugu noqoto isbeddelka siyaasadeed ee waqtigiisa ku dhacay Soomaaliya wuxuu u geystay tallaabooyin horey loo qaadayo wax kastoo markaa caqabad ku keenay iyadoo dhibaato ku yahay dadka Soomaalidana iyaga isku dan ah meel kale wax laga soo guuriyay cid kale wax lagaga dayday midkoodna wax dan ugu jirtay waxa iyaga ka dhaxeeya dano midaas waad garan karaysaan markaa inaan intii aan joognay xiriir badan uu jiray madaxda waddanka Soomaaliya ama heer federaal ama heer state inaan wada hadallo la yeelanaynay sidoo saaxiibka Siciid sheegay in ay tahay in la isugu tago magaalada Muqdisho oo aan halkaas tagno si aan uga sii ambaqaadno war maxaa dhiman ilaa wixii waa in la isqanciyo xagee waxay noo yaalaan aan aadna isugu boorinay cid walbana u sheegayna in wax badan loo tanaasulo qadiyadda guud ee dalka iyo inta maanta danleyda ah ee dhiban ee shabaab iyo mushkilada oo dhan Soomaaliya ay ku haysato waxay soo fiirinayaan waa inta mas-uuliyiinta ah qof walibana berri waa lagala xisaabtami doonaa taasna waxaan rajaynayaa in ay si fiican kusoo dhammaan doonto wixii annagu aanu isnidhi iyo wixii la falanqeeyey kulligeedna ay ahayd dardaaran iyo Soomaali iyo xalkeeda iyo nabadeeda iyo isu keenisteeda iyo xilliga kala guurka in la ilaaliyo inuu ahaa shayga asalka aan ka wada hadlayna mar labaad waxaan rabaa madaxweyne Siciid iyo reer Puntland inaan uga mahad celiyo doorka shariifka ee mar walba ay ka ciyaaraan ilaalinta systemka federaalka iyo dowladnimada Soomaaliya oo aan garanayna maanta dowladnimada xawar lagu degan yahay meesha ay ka soo dhaqaaqday iyo sida ay maanta tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaanu annaguna gudi doono abaalka iyo soo dhoweynta iyo garab istaagga iyo siyaasadda had iyo jeer aad ka waxaynaysaano
mar hadday jubbalandna tahay tii labaad ee kusoo xigtay nidaamka federaalka annaguna aan si fiican usii jiidi doono aan noqon doono muriid fiican